waxaa maanta gudaha magaalada Hadhaadho ka qabsoomay shir ku saabsan amniga deegaanka oo hormuudka ah xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka galbeedka Wajeer Yuusuf Farax Muliiro iyo saraakiil sarsare ee ka socotay lama amniga ee galbeedka Wajeer. Shirkan ayaa daba socday shaqooyin ka dhacay agagaarka tuulada Weldiri ee dhacda galbeedka Wajeer kaasoo ku dhintay hal qof. Shirkan kadib xildhibaanka oo la hadlay warbaahinta Bayan TV ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay wixii ka soo baxay shirkaasi. magacaygu waxa waaye Yuusuf Maxamed Farax MP Wajeer West. halkan maanta waxaan u joognaa inaan ku xalino dhacdadii dhacday darad oo qof lagu dilay meeshan Weldiri agteeda oo dad ay maaragtay meel degan oo tuulo la degan yahay lagu soo duulay oo qof ku dhintay 4 qofna ay ku dhaawacantay 5 qofna ay ku dhaawacantay. waxaan leeyahay horta waxaan u dirayaa dadkii oo laga geeriyooday inaas Ilaahay sabr iyo iimaan siiyo ninkii dhintay as Ilaahay jannatul firdaws geeya anakana gadaashiis as Ilaahay nafidnaynin inta dhaawaca meel ay joogaanba ayakana Ilaahay iyo casiiska hay as u boogadhayo oo Ilaahay caafiyo. mashimiwa markii koowaad ma dhacdooyinka way soo noqnoqotay horta maxaa sababa dhacdooyinka inay isku soo noqdaan deegaankaada? wallahi dhacdada badi waxaa sababa degmooyin la isku haysto oo laba degmo oo is haysato oo isu ag dhow oo is ag degan degmadii id ahayd ayaa maaragtay ay dadka isku haystaan oo la leeyahay degmadan ma la degi kara kuwa kalena waxay leeyihiin idinka ma degi kartiin meesha idinka degantiin markaan degmo un baa la isku haystaa. ugu dambeyn maanta shirkan waa shir amni ayuu ahaa maxaa ka soo baxay hordhacadeeda nasiisi hadii wax ka soo baxay waa badan yihiin oo faa'iido badan ka soo baxday. awalan waxa ka soo baxday inay maaragtay la joojiyo oo xabad joojin la hagaajiyo dadka ay nabad ku wada noolaadaan odayaasha ay wada hadlaan hal joogto ah oo lagu waaro labada dhinac ba la raadiyo. marka hadda meesha halka aan taaganahay waxaan la fariisanay laamihi amniga iyo chiefafti odayaal dhaqameedkiina waxay aadeen Wajeer oo bari sharcigi iyo halkii la mari jiray ayaa la marayaa kadibna waxaan aaminsanahay insha Allah ta'ala biidhnillah al-kareem odayaasha iyo annaka iyo dadkii madaxda ahaa in hal waarta oo arintan ku xisaabsan aan keeni doono insha Allah. bulshada hadda ku daawanayso ay reer Wajeer ama Wajeer West dhamaantood maxaad ugu baaqaysaa dhanka amniga marka la dhaho? wallahi waxaan ugu baaqayaa horta waqti badan aan amaan ku nooleeni dadka waa jiraan waa dad wada dhashay waa dad walaal ah waa dad ehel ah ma haboono ama ma banaana inay ma aragtay qof bini aadan oo muslim ah oo qori intuu qaata oo qof ku dhufto oo dila taasna aad ma aragtaan u xanuunsanay mana waxaan aad ugu baaqayaa in nabad lagu noolaado qof kasta maxay yahay hata bloodkaada lagu qabsado qofka qoriga ma dilaysid waxaa la rabaa qofkii asaga inaad la hadasho oo ayrku u dhimriso oo wada hadal wax lagu dhameesto laakiin qorigan lala soo baxayo qofkii meel degaba madax loogu dhufanayo ama dib la keenayo in la joojiyo oo gacanta maaragtay muslimnimada iyo diinta lagu laabto oo Ilaahay laga cabsado. dhanka kale qaar kamid ah uqaasha magaalada Hadhaadho ayaa igana baaq amni u diray dadka shaqooyinka ku dhaxmartay tuulooyinkaasi oo ninkii tagay waa tagay Ilaahay u raxmada eheladii aas ka dhintina sabar iyo iimaan Allah siiya ninkii dhaawacmayna caafimaad khayr qabaan inaad Ilaahay siiyaan u duceynaynaa laakiin hal la joojiyo colaada dambe oo gacanta la isku jiro iyo hanjabaadyaha isu socdo col ma deeqa col wiila ku dhashay ma wiil kuma dhashay wiila ku dhintay ma wiil kuma dhashay wiil kuma dhashay wiila ku dhintay nabada caana macaan nabada ninka waxay tahay nin loo sheegaa mal hata saqayra ilmaha bilcaanta way ogsoon yihiin waxaan rabnaa dadka walaalahayna inay colki joojiyaan. magacay waxa la yiraahdaa Qaasin Shaalle Cilmi waxaan nahay chairmanka Hadhaadho North baan nahay waxaan baaqi u jeedinayaa nimanka walaalaha aan nahay dhalinyada aan nahay oo sub county-gana isku nahay oo beesha ajuuraan iyo beeshan dogoodiyo is haysa nabadgelyo ayaa caana macaan annaga nabadgelyo ayaan rabnaa walaalayaalow gacantiina dhulka dhiga ninkii dhintay Allah u naxariisto ninkii dhaawacmina Allah u boogadhaya dagaal iyo qayle waxba ma keenayin
wada hadal iyo walaaltinimada uun ka fiican waxaan aniga baaqi u jeedinayaa nabadgelyada inaad soo dabaashaan oo gacmihiina dhulka dhigtiin cidii reer aabbaheeyo dogoodiyana idankan aargoosha ha samaynina dadka muslimiinana dad ummatul maxamed islaan aana dadkan maan walba meesha isku laayna ma fiicna maxamed kulmiye warbaahinta BN TV magaalada Hadhaadho